يا أمها سنتين من قيمة وين أعتقادتين استحقاق بالشهادة كنت بنهي وانتهي إن استحق شان صاحبة الوطن وحوالي وحي هاجرتي غير مدينة غير بوندير غير حمرويني تاسدت كسوة قنجري إذا عالم آدي أمها سنتين قارهان راديو كلمية إني بديان ترتمد نوعانا رمضان كلية معانا إن لابد بالوضع أما بالوضع الأرض إن اليرد اللي يسكو كأنه أي سمايان دون وداع أما ترتمع علمية سن لوه المرينا أي مجالات يوضع قوي waxaan ku bilaabi doonaa dadka marka ugu horeyso maamulka gobolka Banaadir oo ugu talagalay amaba oo dabcan dadkii kaalinta weyn ka geysay tartankan idaacadda kulmiye iyo maamulka gobolka Banaadir ay isla qabanayeen dadka abaalmarinada la guddoonsiinayay waxa ugu horeeya abwaan Cusmaan Cabdullaahi Nuure isku xilka bulshada iyo taabagelinta tartanka oo leenahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay waxaan qabnaa haddaan isla jaan qaadno isgarab istaagno isku tashanno inaan haysano sabab oo aan horumar ku gaari lahayn sidaas daraaddeed waxaan kalsooni fiican ku qabnaa in aan taageero badan ka heli doono kulmiyana ay horumar ka noqon doonto aasaasidda ama horumarinta maamulka gobolka Banaadir 2018 rajada uu ka leeyahay in caasimadan ay yeelato iyo horumarka ay ku tilaabsan doonto waxaan jecel lahaa inaan iyagana soo dhaweyno iskuulka Banaadir Zone oo gobolka Banaadir uu gartay in iyagana shahaado sharaf halkan uu ku guddoonsiiyo maadaama ay iyaguna qaateen taabagelinta iskuulka Banaadir Zone soo dhawaada ayaan leeyahay maamulka gobolka Banaadir uu ku talagalay in uu guddoonsiiyo shahaado sharaftaas aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin maamulka gobolka Banaadir oo tartanka taabagelinayay degmada Wadajir maadaama ay noqotay kaalinta koowaad wuxuu ku talagalay 50 milyan oo shilin Soomaaliya in halkan lagu guddoonsiiyo waa tahay abwaanka qabta tiimka tartamayaasha lacagta ayaa loogu talagalay maamulku uu guddoonsiiyo waxaan leenahay ambaliyo sacabka iyo soo dhaweynta aanu wada ambaliyeyno aanu wada sacbino ay mutaysteen waxaan leenahay ambaliyo degmada Wadajir aad iyo aad u mahadsantihiin degmada Hilwa oo kaalinta labaad gashay ayaan soo dhaweynayaa haddana degmadan waxay ku guulaysatay iyaduna maamulkuna uu ku abaalmariyay dadaalkeeda awgeed 30 milyan oo shilin Soomaaliya 30 milyan oo shilin Soomaaliya ayuu maamulka gobolka Banaadir ku abaalmariyay dadaalkooda awood waxaan leenahay ambaliyo gudoomiyaha degmada iyo tiimkiisaba waan wada hambalyeynaa degmada Cabdicasiis kaalinta saddexaad gudoomiyaha dhalinyarada degmada ayaa hogaaminaya soo dhawaada ayaan leenahay tiimkii tartamayaasha degmada Cabdicasiis ayaa socda oo gudoomiyahoodii dhalinyarada uu hogaaminayo shahaado sharafta ayaad gudoomi doontaan marka hore maamulka u qaadaysaan kadibna abaalmarin qaaliya ayaa laidin guddoonsiin doonaa shahaado sharaftooda kadib degmada Cabdicasiis waxay ku guulaysatay oo maamulka gobolka Banaadir abaalmarin uu siiyey 20 milyan oo shilin Soomaaliya 20 milyan oo shilin Soomaaliya ayuu maamulka abaalmarin u siiyey degmada Cabdicasiis tiimkooda soo dhawaada ayaan leenahay tartankii taariikhda dalka idaacadda kulmiye qabatay ma ahayn kii ugu horreeyey ee ay qabato waxa ahay idaacaddii ugu horreysay maamulka gobolka Banaadir ay tartan wada qabtaan waxay la tahay sanadkan idaacado badan iyo xataa TV ayaa ka qayb galay hase yeeshee sanooyin badan tartanka waxaa qaban jiray idaacadda kulmiye iyo gobolka Banaadir tartan muddo soo jiray ayuu ahay weliba iyadoo magaalada Muqdisho ay adag tahay in lagu dhiirado in 4 saac habeenimo lagu tartamo oo dhalinyaro iyo aqoon-yahano inta goob isugu yimaadeen ay tartan ku qabtaan iyadoo aad u adag tahay oo nabadda iyo maanta xaaladda ay ku soo tahay aan ku sugnay ayuu tartanka la qaban jiray haddana waan u bareernay sababtoo ah ummaddu haddaysan aqoon helin labad ma helayso intuu qofku ku jiro mugdi oo iftiin uusan helin waxaa la fudud inuu ama wax dilo ama la dilo ayaa fudud hase yeeshee markii ilaahay aqoon siiyo oo uu wax barto oo uu wax
faa'iido nolosha bini'aadamka iyo qiimaha ay leedahay ayuu dareemayaa marka sababta aan xooga u saarnay tartankaas waxay ahayd in bulshada oo u badan da'ya inay aqoon badan ka faa'iidaan radio kulmiye shahaada sharaf isagana si gaara loogu talagalay ayaa dabcad jirta oo maamulku u gartay maadaama raadiyo wax badan ka shaqeeyey radio kulmiye soo dhawaada ayaan leenahay oo ku soo dhawaada waadna ku mahadsantihiin sida qiimiga badan ee aad dabcan naga qayb qaadateen wacyigelinta bulshada agaasima ku-xigeenka raadiyaha burhaan diini ayaa dabcan guddoomi doona shahaadadaas aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa maamulka gobolka banaadir mar walba oo uga mahad celin doonaa taabagelintooda iyo kaalintooda bulshada ay ka qaadanayaan Come on,